burburka ciidamada taliska siyaad barre ka geysanayeen gudaha magaalada Hargeysa waxa ay ka duqeynayeen afarta jihaba halkan aan ku suganahay waxa deganaa xaynta daamurka oo markaasi ahayd meel istiraatiiji magaalada Hargeysa si fiican ay uga wada muuqanayso waxay u adeegsanayeen hubka culus oo halka kan yaalay waxaana ku burburinayeen gudaha magaalada Hargeysa iyagoo markaasi ku anducoonayeen in ay soo galeen way ku tilmaamayeen mujaahidiinta aslam kadibna ay doonayaan gabigeedaba inay baabi'iyaan 88 ayaa film halkan ay iskaga duubeen hadda aan taaganahay iyaga oo sharaxaya markaasi qaabka ay magaalada Hargeysa u duqeynayaan aweysgeedu halkan buu taagnaa waxaan u sharaxayaa xaymaha ay u kala qaybiyeen in ay magaalada Hargeysa ka duqeeyaan oo xayntan ay ugu istiraatiijiyeen marka aynu eegno magaalada Hargeysa marka halkan la taagan yahay si fiican ay kugu muuqanaysaa iyadoo sida nimka ay tahay markaasi ay kaba yareen waxaanu eegaynaa filimkaasi oo iyagoo iska duubeen markii dambana gacanta lagu dhigay dalqaabkii ay markaasi 88kii halkan uga duqeynayeen magaalada Hargeysa waxay ahayd cadawgii guriga galay gurihiina ciidamadii ay si fiican u faltami karin si loo naafeeyo ayaa kaliftay in madaafiicda alla isticmaalo haddaba way kala duwan tahay isticmaalka madaafiicda goobta dagaalada caadiga iyo magaaladu way kala duwan yihiin haddaba qaabka dhismaha madaafiicda goobta waxa weeyaan dhowr xeemood baa ka kooban qaybta xeynta taliska guud xeynta daamurka iyo xeynta airborka masallax kadibna markii la arkay inuu cadowga uu meel kastuu soo galay waxaa la abuuray xeynta tan oo hadda anigaan hogaamiyaysahay oo ah madaxa waaxda goobta isticmaalahayaa xeemahoo dhan kuwa taliska guud kuwa daamurka iyo kuwa masallaxba waajibkan waa kala qaybsan yahay qol walba waajibkii aagi la siiyey inay naafayso ayaa laga doonayaa korneel cabdilaahi shaarub isna wuxuu xukumi jiray saddexda goobood mid ka mid ah ee magaalada laga duqeynayay ilaa iyo meesha rabo madaxooda fogaantiisa inta ay gaari karto sidaas ayaa ilaa maalintii hawsha la bilaabay ilaa maalinka maanta hawshayda halkaas aan uga fulinayna meel fiicanna waa noo maraysaa ilaa iyo hadda tan kula hadlayana waa taas wali بحث حبيبي يا اخوان waxaad u fiirsataa inta qumac madfac ee qori walba barbartaala inta ayuu in kale oo inoo muuqan ayaa Hargeysa lagu ganayay hadda waxa ku suganaya xarunta taliska guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waqtigaasi Hargeysa la burburinayay ee filimkan aan kaga sheekeynayna ahayd qaybta 26aad ee ciidamada qaranka waxa dabcan goobtan ahayd goob inta ugu faraha badan lagu qorsheyn jiray weerarada la doonayay in lagu burburiyo gudaha magaalada Hargeysa waxa halkan fadhiishan jiray saraakiisha u sarreeyay kamid Axmed Warsame iyo Siyaad Daawud oo halkan xaruntooda ahayd iyo Canjeex waxay halkan ka hayay jireen maalin kasta burburka magaalada Hargeysa iyagoo qaybaha kala duwan ee aynu soo martay xayntii daamurka iyo masallaxada halkan ay ka hagi jireen waxaana amarada ay ku siin jireen halkan inay magaalada Hargeysa dhulka la simaan oo la burburiyo waxaana muuqaalada aan ku eegi doona ay yihiin iyadoo xarunta taliska guud ee hadda ay ku sugan yihiin saraakiishaasi aan tilmaamay ee Axmed Warsame uu kawda ka yahay oo aabbo ahaa dadkii burburiyay caasimadda Hargeysa waxa ay fuuli jireen marka ay doonayeen magaalada Hargeysa si fiican u arkaan dusha sare ee markaasi dhismaha weyn ee taliska guud ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhismahan ay xaggiisa sare fuuli jireen si ay magaaladu si fiican ugu muuqato burburkeedana ay u daawadaan 1988 ayaa cajalada isaga duubeen isla halka sare iyo gudahaba waxaanu eegi doonaa iyagoo halka sare saaran 88kii amar ku bixinayeen magaalada si fiican loo duqeeyo muuqaaladaasi oo kuwa rasmi ah iyagoo iska duubeen warbixin ay markaasi ku sameeyeen sida ay magaalada markaasi Hargeysa u burburinayaan waxaanu fuuli doonaa dusha sare ee taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland waxaanu istaagi doonaa goobtii ay 30 sano ka hor taagnaayeen ay ka burburinayeen gudaha magaalada Hargeysa dusha sare ayaynu fuuli doonaa si aynu macluumaad dheeraad ah markaasi ugu ogaano qaabkii ay howlgalladaasi u fulinayeen oo dabcan markaasi qayb ka ahayd howlgalladii ay fulinayeen
halkan waxa laga eegi jiray subax kasta iyo mar kasta laga qorsheyn jiray sida magaalada Hargeysa loo burburinayo iyadoo amar laga bixinayo 88 haddii aynu dib ugu noqono halkan hadda kamaradu taalo waxa markaasi joogay oo fadhiyay saraakiishu u sareeyay Axmed Warsame iyo Siyaad Daawud iyo Canjeex kuwaasi oo qiimeynaya amarna ku bixinay in Hargeysa dhulka la simo markaasi axmaqnimo loo dundumiyo muuqaalkaasi ayaan idin soo gudbin doonaa iyagoo halka kan fadhiya oo sharaxaya sida Hargeysa u burburinayaan jenaraal Axmed Warsame wuxuu iska dhigi jiray nin ahludiina oo walaada haddana isagoo tustax rogaya ayuu qiimeynayay dadaan waxba galabsan iyo magaaladan sidii loo burburinayay duqeynta laga duqeynay dhulka magaalada Hargeysa waxa uu dheeraa in diyaaradihii ka duuliyay isla madaarka magaalada Hargeysa ay dib u duqeynayeen magaalada Hargeysa waxa duqeyntaasi lagu laayay dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa gudaha caasimadda Hargeysa iyadoo intii xoog ahaydna ay nafta u la caratay xeriyihii qaxoontiga ee Itoobiya waxa dagaalkaasi ku nafwaayay inta la hubo oo kaliya 50,000 oo qof sida ay sheegtay hay'adda Amnesty International iyadoo kumanaan kalena aan lahayn meel ay jaaniyo cirib dhigeen